agaasimaha ciyaaraha ee kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa difaacay laacibka kooxdiisa ee Kylian Mbappe oo khilaaf soo kala dhaxgalay tababaraha kooxda PSG. Mbappe ayaa ka carooday bedel uu tababarahaasi ku sameeyay daqiiqadii 68aad ciyaar usbuucii hore ay PSG 5-0 ku garaacday kooxda Montpellier. waxaana banaanka garoonka ay hadallo taagtaagan isku weydaarsadeen tababaraha oo xilligaasi soo geliyay Icardi. haligii hore xulka qaranka Faransiiska Dugarry oo dhacdadaasi ka hadlay ayaa Mbappe ku tilmaamay inuu lumiyay ixtiraamkii looga baahnaa qof ciyaartoy ah. hase yeeshee waxaa ka jawaabay agaasimaha ciyaaraha ee kooxda PSG Leandro oo tilmaamay in aan la aqbali karayn qaabka looga hadlayo 21 jirkan. waxaan maqlay waxyaabo ku saabsan Mbappe iyo shakhsiyadiisa waana iga caadisiisaa haddii uu ciyaartoy ka baxo garoonka oo uu la hadlo tababaraha waa wax caadi ah. qalad ayuu ku jiraa, waanu ka hadli doonaa oo aanu xalin doonaa tan, laakiin la yiraahdo waa cunug lunsan ma aha wax la aqbali karayo, ayuu yiri Leandro oo waramayay telefishinka Canal Plus. waa ciyaartoy deeqsiya, shakhsiyad toosan iyo ciyaartoy fantastiga ayuu raaciyay Leandro. ciyaartii xalay ee 4-2 ay kaga adkaadeen Lyon. Mbappe waa uu dhameystay 90 daqiiqo waxaanu ka caawiyay naadigiisa inay hoggaanka ku qabtaan 12 dhibcood oo nadiif ah.